iyo 10 qof oo meeyda oo mukuwal cunay xal ay sheegan oo isku meel tan qof laga duugin anigu baaqi lahaa beesha degan oo cayr nimanka ku meetera xilka محمد محمد صلاد عبد الحكيم معلن محمد معلن أحمد إني أن نقدان أرنتا أو حلو النقدان أنا باغيا سيدي ونقدان waxa igu noqonayaan dadkooda waa baabaa iday xukumaanay rabaan kursi aan dhiig lahayn ay rabaan inay sharaf ku noolaadaan rabaan inay ummadooda ka bedelaan waxa maanta ku jiraan ka codsanaya nimankaas anu baaqaya dhinaca kale waxa uu baaqaysaa ahlu sunna dhinaca kale macallin maxamuud iyo sheekh maxamed shaakir waxaan ugu baaqayaa waa culimadii waa jecelnahay waxaan rabnaa inay kitaabka dib u noqdaan fiiriyaan ummadda maanta qoraxda dhooban kana baxaan waxa ay ku jiraan wax halkan la galaan nimankaas wada hadlaan hadda gurcaalan joognaa dadkii gurcaal ee ku sugnaa oo ka barakaceen dagaal xun baa magaalada ka dhacay dad taqaano oo lagu soo wariyo dhintay ma lagu sheego labada dhinac oo dagaal ku jira wax aniga aan aqaan hadda anna ma weydiin leeman soo warin laakiin waxa la ii sheegay xalay gabdha ari raadiyay dadka noocaas dadku waa muslim culimaduna ayadaana tiri qof muslim qofkii dila ayada nolosha wuxuu ku yahay waxaan ka codsanayaa ummadda qoraxda u baxday inay ilaahay baryaan taageerada daayaan waa baabeen waa guureen waa dhacmeen waa gubteen ilaahay ha baryaan ha daayan taageerada waa jirta wax oo aad inta ugu sii dar lahayd oo fariin kala oo arrimaha dagaalka ku saabsan ma jiraan arrimaha dagaalka waxaan leeyahay dawladda arrimaha dagaalka afar beri oo halaagan ku jirnaa waa dawladdanadii dadka waxa isaga darsan dawlad ma rabo iyo hebel ma rabo wax dawlad nacsan ma jiraan dawlad ninka yaqaan ninka aan aqoonna waa in la tusoo rabo ayr lagu horkaco waxaan leeyahay dawladda halka maanta jira hal hanoogu bedelan waa dawladdanadii waa rabnaa waa u baahannahay waliba dadka u jiracsan ka midna anigu waa sahan magaalada intii bariyo dagaalku ka socday dadkii xamaalatada ahaa waa cabaadayaan cabashay muujinayaan waxay leeyihiin waa baaba'nay miyigay toban yihiin daafaha magaalada ay toban yihiin dad adiga kula soo xiriiray oo aad u liitamo jiraan waxaan arkay 3 nin aniga intaan arkay oo waaweyn oo ninka ugu yar oo 40 sano jiro oo baahi meel yaal cid wax siinaan la arag dadka noocaas waxa mas'uul ka saaran tahay ama dawladda ama culimada ama intii wax garta xil ka saaran yahay waxaan codsanayaa dadka noocaas waxaan la ogeyn ka badan waa qaxay ku nool oo waa tageen allah wuxuu ka kala dadkaas noocaas waxaan rabaa in loo baneeyo magaaladooda si kasta loogu baneeyo oo ay ka tashadaan oo nabad lagu baaqo intaasan leeyahay si loogu baneeyaa waxaan loogu baneynayaa haddii laga rabo dadka dadnimo iyo in dawlad lagu noqdo ama culimo loo noqdo in loo baneeyo haddii aan la rabin in waxba loo noqdona gebigood kaara ku xira baabi'iya iyo 10 qof oo meeyda oo mukuwal cunay xal ay sheegan oo isku meel tan qof laga duugin anigu baaqi lahaa beesha degan oo cayr nimanka ku meetera xilka محمد محمد صلاد عبد الحكيم معلن محمد معلن أحمد إني أن نقدان أرنتا أو حلو النقدان أنا باغيا سيدي ونقدان waxa igu noqonayaan dadkooda waa baabaa iday xukumaanay rabaan kursi aan dhiig lahayn ay rabaan inay sharaf ku noolaadaan rabaan inay ummadooda ka bedelaan waxa maanta ku jiraan ka codsanaya nimankaas anu baaqaya dhinaca kale waxa uu baaqaysaa ahlu sunna dhinaca kale macallin maxamuud iyo sheekh maxamed shaakir waxaan ugu baaqayaa waa culimadii waa jecelnahay waxaan rabnaa inay kitaabka dib u noqdaan fiiriyaan ummadda maanta qoraxda dhooban kana baxaan waxa ay ku jiraan wax halkan la galaan nimankaas wada hadlaan hadda gurcaalan joognaa dadkii gurcaal ee ku sugnaa oo ka barakaceen dagaal xun baa magaalada ka dhacay dad taqaano oo lagu soo wariyo dhintay ma lagu sheego labada dhinac oo dagaal ku jira wax aniga aan aqaan hadda anna ma weydiin leeman soo warin laakiin waxa la ii sheegay xalay gabdha ari raadiyay dadka noocaas dadku waa muslim culimaduna ayadaana tiri qof muslim qofkii dila ayada nolosha wuxuu ku yahay waxaan ka codsanayaa ummadda qoraxda u baxday inay ilaahay baryaan taageerada daayaan waa baabeen waa guureen waa dhacmeen waa gubteen ilaahay ha baryaan ha daayan taageerada waa jirta wax oo aad inta ugu sii dar lahayd oo fariin kala oo arrimaha dagaalka ku saabsan ma jiraan arrimaha dagaalka waxaan leeyahay dawladda arrimaha dagaalka
afar beri oo halaagahan ku jirnaa waa dowladdanadii dadka waxaa isaga darsan dowlad ma rabo iyo hebel ma rabo wax dowlad nacsan ma jiraan dowlad ninkii yaqaan ninkaan aqoonna waa in la tuso rabo ayr lagu horkaco waxaan leeyahay dowladda xalka maanta jira xal ha noogu bedelin waa dowladdanadii waa rabnaa waa u baahannahay weliba dadka u jiracsanaan ka midna anigu waa sahaan magaalada intii beri uu dagaalku ka socday dadkii xamaalatada ahaa waa cabaadayaan cabashay muujinayaan waxay leeyihiin waa baaba'nay miyigay tuban yihiin daafaha magaaladay tuban yihiin dad adiga kula soo xiriiray oo aad u liitamo jiraan waxaan arkay 3 nin aniga intaan arkay oo waaweyn oo ninka ugu yar oo 40 sano jiro oo baahi meel la yaal cid wax seenaan la arag dadka noocaasa waxa